waxaa galabta ka dhacaysa bannaanbaxa ziyaarada macallim daa'uud sheekh cumar rooble iyo aabihiis sheekh cumar rooble oo sanad waliba lagu qabto magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Bannaanbaxa ziyaaradan waxaa ka qayb galay culimadiin isaga kala yimid gobolada dalka iyo dibaddiisa. sidoo kale bannaanbaxan galabta waxaa qayb ka ahay dariiqooyinka kala duwan ee duruq suufiya ayagoona halkaasi ku soo bandhigay digriyaal kala duwan. bannaanbaxa ziyaaradan ayaa intii uu socday waxaan halkaas mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah culimadii ka qayb gashay bannaanbaxan ayagoona si faahfaahsan uga hadlay taariikhda macallim daa'uud sheekh cumar rooble. waxaan joognaa bannaanbixii ziyaartii macallimkeennii macallim daa'uud sheekh cumar ilaahay u naxariiso subxaanahu wa tacaala ziyaartana naga aqbalo macallinka taariikhdiisa intii la soo sabantay waa fiicnaad horta wax badan laga weydiiyo laakiin kaliya lagu xusuustaa macallinku wuxuu soo khidmeeyay ilaahay diinkiisa cimrigiisina wuxuu ku soo dhameeyay quraanka dhigidiisa iyo dadka baridiisa quraanka caan wuxuu ku ahaa macallinku dadka wuxuu bari jiray quraanka saas caan ku ahaa macallinku. ziyaaradii waxaan joognaa macallin daa'uud ayaan joognaa gabagabadeedii waaye culamadii kulli way joogaan oo ay soo xaadirsan yihiin insha Allah bidnaahi kariim hal furitaankii ayaa ana lii doortay insha Allah hadaradii saasay ku furantahay. waa ziyaaradii macallim daa'uud sheekh cumar waa maalin weyn oo ilaahay agtiisa ku weyn waa maalin addoommada ninna ul ku keenina ilaahay fadligii ku yimid waa maalin dadka saqiir iyo kabiirba ay wada jidbaysan yihiinoy raxmad ilaahay ay wada haddii alla idma ay soo kicisay qalbi nadiifa lala yimid iimaan saadiqo wanaagsan baa lala yimid. alxamdulillaah macallim daa'uud anugu ma soo gaadhin laakiin waxaan ka haystaa inuu ahaa dadka waaweyn oo ilaahay agtiisa fadliga ku leh oo rasuulka ilaahay maciisa ah kuwa ilaahay raalli ka noqday baan ku maqlay cimrigiisiiba wuxuu ku dhammaystay diinta islaamka fidinteeda quraanka munazzalka ah buu ku caanbaxay. ziyaaradii macallim daa'uud sheekh cumar hadday diin soo akhriyeen iyo hadday sadaqo keeneenba waa ilaahay mahadiis qof meeshaan galabta adduunyo u soo doontay ma jiro cid kasta oo ka soo qayb gashay ziyaaradiisii oo qabrigiisa soo ziyaaratay ilaahay dartiisuunbay uga jeedeen isku imaashahooda horta dadkan ummaddan waa sida ilaahay buu jeclaa rasuulkiisuu jeclaa qur'aanka kariimka ayuu macallim daa'uud u jeclaa siduu u jeclaa amaalkeediina wuu helay waana haystaa waxaan u rajaynaynaa qof mu'minu ciidda intuu ka sarreeyo inuu socdo ajriga iyo thawaabkii uu ka rajaynayay qur'aankii uu faafinayay. waxaan joognaa ziyaaradii macallimkeennii macallim daa'uud sheekh cumar rooble mashaayikhda ka soo sheekaysay kadibna waa laga sheekaynayaa macallin daa'uud sifaadkiisa iyo karaamaadka ilaahay siiyey wax alla
la koobi karo iyo wax laga sheekayn karo iyo waxaan kalimo ku soo koobi karna ma ahan axbaabta iyo xeerta iyo dadka soo ziyaartayna qof walba muraadkuu lahaa diinan iyo waddunyanba allaha siiyo caafimaad allaha siiyo hanuun allaha siiyo macallin daa'uud baan galabta ku tawasulaynaa abaarta iyo colka allaha nooga qaado abaarta iyo colka si fudud allaha nooga qaado abaarta iyo colka si fudud allaha nooga qaado macallin daa'uud fadligiisa nin waliba meeshuu ka yimid farxad allaha ku geeyo